kulan waxaan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan barnaamij wareedkeena waxaa ka mid ah Dani Axmed Madoobe iyo madasha samata bixinta oo ka shiraya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka. Saciid Cabdullaahi Dani oo Puntland gudaheeda ku wajahaya mucaaradadii ugu weyneed abid ee ka dhacda Puntland iyo isimada oo ku kacay. sidoo kale waxaad ku daawan doontaan barnaamijkeena Mareykanka oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kala hadlay xiisadda siyaasadeed ee muranka doorashooyinka. Cabdirashiid Janan iyo gudoomiyaha gobolka Gado oo looga yeeray magaalada Muqdisho inay yimaadaan. mid ka mid ah argagixisada Al-Shabaab asaasayaashoodii oo lagu dilay gobolka Jubbada Hoose. qodobada kale ee daawan doontaan waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Xamse oo xilka qaadis sameeyay isla markaana wasiiradiisa qaar ku soo kordhiyay qaarna ka diray. wariye sare Cabdicasiis Golof Yare ninka lagu magacaabo oo madaxtooyada Soomaaliya warfaafinteeda la wareegay. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena ee kusoo dhawaada isagoo faahfaahsan. aynu ku bilaabano madasha mucaaradka Soomaaliya. Dani Madoobe ayaa waxa ay shir ku yeelanayaan xaaladaha dalka Soomaaliya ka soo cusboonaaday. golaha mustaqbalka Soomaaliya oo ah madal mucaarad oo dhowaan laga aasaasay magaalada Nairobi ayaa yeelanaya shirkoodii ugu horeeyay kadib markii la dhameystiray qaab dhismeedkooda. madasha samata bixinta oo qayb ka ah dhinacyada ku midaysan xaruntan ayaa waxaa ku matalaya xildhibaan Cabdulaahi Xaaji Abuukar ninka lagu magacaabo injineer Arab iyo sidoo kale Dr. Maxamed Aadan Jimcaale Koofi. Puntland iyo Jubbaland ayaa dhankooda laga sugayaa in ay magacaabaan min 2 xubnood oo ayaguna ka soconaya labadaasi maamul goboleed si looga arinsado madal loogu magac daray mustaqbalka Soomaaliya. madashan ayaa waxaa ku midaysan mucaaradka Soomaaliya ee fadhiya magaalada Muqdisho ee la baxay madasha samata bixinta iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada dalka oo ay ugu horeeyaan Dani iyo ninka lagu magacaabo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa wajahaya culays siyaasadeed oo kaga imaanaya mucaaradka iyo isimada dhaqanka ee Puntland. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa wajahaya culays siyaasadeed oo sii xoogeysanaya kadib markii isimada dhaqanka iyo xisbiyada mucaaradka qaarkood ay si rasmi ah u muujiyeen mowqif ka dhan ah xukuumaddiisa. xisbiga mucaaradka ee loo yaqaano Sincad ayaa si buuxda u taageeray baaqi isimada qaar ay dhowaan ku dalbanayeen in dib u eegis lagu sameeyo hanaanka dowladnimada Puntland isla markaana la dhiso Puntland cusub oo ku tiirsan isbedel iyo hufnaan siyaasadeed. bayaan ka soo baxay xisbigaasi ayaa lagu sheegay in haatan sida Puntland ay ku socoto aysan ahayn mid loo dhan yahay midnimada Puntland iyo dowladnimadeedana aan ka shaqaynaynin. bayaanka ayaa lagu yiri waxaan taageersanahay baaqa isimada waxaana laga maarmaan ah in dib loo eego jihada Puntland ay u socoto si looga hortago kala daadsanaanta siyaasadeed. dhanka kale xisbiga horseed oo kamid ah xisbiyada waaweyn ee Puntland ayaa soo saaray war saxaafadeed waxaana ku yiri khilaafka siyaasadeed waa in aan lagu ciyaarin jiritaanka Puntland waa in la dhowraa sharciga iyo midnimada dhuleed ee Puntland. waxaana muhiim ah in isimada dhaqanka ee doonaya dib u eegista ballaaran ee siyaasadeed la tixgeliyo. laba xisbiyada mucaaradka oo ku eedeynaya hoggaanka kalitalisnimo iyo sidoo kale in Saciid Cabdullaahi Dani uu wiiqay dimuqraadiyaddii xukuumaddiisa oo ku mashquulsan waa midda Saciid Cabdullaahi Dani difaaca siyaasadda dowladda iyo ilaalinta awoodda maamulka oo ah mid ay ayagu meel iska dhigeen. markana mid ka mid ah argagixisada Al-Shabaab asaasayaashoodii ayaa la dilay naftana la dhaafiyay. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa looga hadlay howlgal lagu dilay mid ka mid ah asaasayaashii argagixisada Al-Shabaab. ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo garab ka helaya saaxiibada caalamka ayaa duqeyn qorsheysan oo ka dhacday habeennimadii 26 Oktoobar 2025 deegaan lagu magacaabo Bu'aale ee gobolka Shabeellada Dhexe waa Jubbada Dhexe ku dilay horjooga sare oo ka tirsan kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab kaas oo lagu magacaabi jiray Maxamuud Cabdi Maxamuud kuna magac dheeraa Jacfar Gurey. dhagarqabahan ayaa wuxuu ka mid ahaa dadkii aasaasay Al-Shabaab waxa uuna aad ugu dhawaa Axmed Gudane iyo sidoo kale Axmed Diiriye oo muddo dheer ay soo wada shaqeeyeen. waxaana hore u soo qabtay xirar kala duwan oo ay ka mid yihiin waxa ay ugu yeeraan madaxa amniga dibadda, madaxa amniga madaxda Al-Shabaab iyo madaxa dabagalka.
dhammaan xilalkaasi ayaa la xiriiray howlaha sirdoonka, qorsheynta weerarada iyo dilalka arxandarrada ah ee kooxda argagixisada ay geystaan. dhagarqabahan ayaa door muuqda ku lahaa maalgelinta iyo dhismayaashii hore ee kooxda, isagoo qayb ku lahaa lacag laga soo dhacay shirkad Ethiopian ah oo ay ku wada jireen hogaamiyaashii hore ee kooxda Godane iyo sidoo kale asaasihii kooxdaasi ninkii lagu magacaabi jiray Axmed Diiriye. Ninkan ayaa wuxuu ahaa dhagarqabo aada u weyn oo ka shaqeynayay burburinta dadka iyo dalka Soomaaliyeed iyo dowladnimada, waxaana ka mid ahaa xubnihii aasaasay argagixisada oo weli ahaa kuwa nool, laakiin hadda ayuu gacanta dowladda iyo saaxiibadooda ku baxay. Cabdirashiid Janan iyo gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa looga yeeray magaalada Muqdisho, halkaasi ayayna soo gaarayaan. taliyaha nabad sugidda gobolka Gedo ninka lagu magacaabo Cabdirashiid Cabdi Nuur Janan ayaa maanta waxa uu kasoo ambabaxay magaalada Muqdisho usoo ambabaxay halkaasi oo kula kulmi doono mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya. wararka la helayo ayaa waxay sheegayaan in safarka taliyaha uu la xiriiro kulamo farsamo oo hordhaca wadahadalo u dhexeeya fila Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, kuwaas oo lagu doonayo in xal looga gaaro muranka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Madoobe u dhexeeya. waxaa horey magaalada Muqdisho ugu sugnaa gudoomiyaha gobolka Gedo ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ninka lagu magacaabo Shimbir, kaas oo asaguna sidoo kale qayb ka ahaa la tashiyada wadahadalada lagu doonayo in la furfuro mar kale Jubbaland. guddiyadan ayaa la filayaa in la magacaabo, waxayna noqon doonaan kuwa diyaariya ajendayaasha iyo habraaca wadahadalka mustaqbalka ee u dhexeeya Kismaayo iyo Muqdisho, iyadoo ujeedadu ay tahay in la xoojiyo wada shaqeynta iyo kalsoonida siyaasadeed ee labada dhinac. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa ay doonaysaa in Gedo ay ka talageliso sida ay ula dhaqmayso ama ay ula heshiidayso Axmed Madoobe. ila xoogaala ayaa tilmaamaya in socdaalka taliyaha iyo kulamada socda ay yihiin tallaabo cusub oo lagu dejinayo xiisada siyaasadeed ee magaalooyinka ka taagan gobolka Gedo, taas oo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay haatan xalka u aragto in la dejiyo dagaalka lagula jiro Axmed Madoobe. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa la xiriirtay dowladda Mareykanka qadka taleefanka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qadka taleefanka kula hadlay ninka lagu magacaabo Moses Paulis oo ah taliye sare oo ka tirsan arrimaha Afrika ee dowladda Mareykanka. labada dhinac ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga labada dal ee ku saleysan danaha wadajirka ah, iyadoo mar kale la xaqiijiyay doorka Mareykanka ee dhismaha dowladnimada Soomaaliya iyo taageeridda nabadda iyo horumarka Geeska Afrika. intii uu socday wicitaanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale bogaadiyay dadaalada diblomaasiyadeed ee dhowaan uu qaaday madaxweyne Donald Trump, kaas oo ku sheegay in ay gacan ka geysan doonaan xasilidda iyo nabadgelyada caalamka. marka kalena dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa ay sameysay qaar ka mid ah golahooda wasiirada in ay isbedel ku sameyso. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu magacaabay ninka lagu magacaabo Saalim Caliyo Ibrow oo loo magacaabay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada, waxaana la ceyriyay wasiirkii hore ee taladaasi hayay. arrinta xiisaha leh ayaa waxa ay tahay Saalim Caliyo Ibrow inuu noqonayo markiisii 19aad wasiir ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya tan iyo dowladii Carta sidii loo asaasay. madaxtooyada Soomaaliya ayaa wariye sare ninka lagu magacaabo Cabdicasiis Golofyari oo arrimaha kala guurka ahaa ninkii ugu waaweynaa ee la soo tabin jiray, waxay u magacowday inuu noqdo madaxa warfaafinta ee fila Soomaaliya. ninkan ayaa lagu xusuustaa waqtigii kala guurkii iyo dowladii Farmaajo inuu ahaa ninka ugu weyn ee xogta dowladda federaalk ee Soomaaliya soo gudbiya iyo ilaha hoose, taas oo inta badan run u muuqan jirtay. mar kale waxa uu ahaa wariyihii ugu horeeyay ee sheegay afduubashadii dowladda federaalk ee Soomaaliya ay u ogolaatay inay afduubto ninkii lagu magacaabi jiray Cabdikariin Qalbi Dhagax in dowladda Itoobiya ay la wareegto, taas oo ummadda Soomaaliyeed fajicisa ku noqotay. Cabdicasiis Golofyari ayaa waxa uu hogaamin doonaa warfaafinta fila Soomaaliya, waana xil ay adag tahay in dowladda iyo sidoo kale dadka la shaqeeya ay inta badan noqdaan kuwa iska soo horjeeda, ama qofka fila Soomaaliya warfaafinteeda ka shaqeeya uu si degdeg ah uga hor imaado warfaafinta kale ee uu hore uga tirsanaan jiray, maadaama ay isdiidan yihiin qaabkooda shaqo. laakiin Golofyari
waa wariyey ilaa iyo muddo 15 sano arrimahan kasoo shaqeynayay lana aaminsan yahay inuu faham weyn u leeyahay.